Jubbaland ka soo jeeda ee Muqdisho jooga ayaa kulan ay isugu yimaadeen waxa ay ku sheegeen in gabi ahaanba sharci darro lagu soo magacaabay laguna soo xulay guddiga doorashada oo dhawaan soo saaray jadwalka doorashada Jubbaland. waxa ay sheegeen odayaashani in Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland ee waqtigiisu idlaanayo ee mar kale musharaxa ah uu ugu talagalay si uu u soo laabto guddigan soo magacaabistiisa. waxgaradka goobta ka hadlay ayaa sidan u dhigay hadalkooda. waxaweye meeshan waxaan isugu nimid arrinta Jubbalandna waxaan isku raacsannahay inuu dulmi ka jiro inteena Soomaa. waxaa dulmigaasi waxa weeye adduunka waxaa ka jira lahab oo ah doorasho iyo xulis labadii mid aan ahayn baa ka jirta Jubbaland. qofka inuu doorto meel sanduuq wax ku rido ama qofku doono uu sidoo u doorto iyo mid kale oo aan baryahan dambe ku dhaqmayno ah oday dhaqameed inuu qof soo xulo labadii midna ma ahan wax Jubbaland yeelada labadii dhaqan la yaqaanay mid saddexaad baa ku soo kordhay oo Axmed Madoobe wato. Axmed Madoobe wuxuu u suuray hadda u muuqdaa nin ficilka ay ku dhaqmeen Namruud iyo Fircoon oo kale oo ah فعال لما يريد لا يبقى. وعن مغلي جري بدلانا وحيري عبد الولي لما سو دقي كرو نما إيمان كلا ما إيمان كرو نما نربين وهالقبيلة بدلان واحد كان وهالقبيلة هدوس عشدية هدوس وقلاده وهالقبيلة يا إخواني جبضه حساس ما كنتم قبيلة بهالقبيلة دقن هل نينو شخصي أم هالقبيلة هدوي ذا اللي ما إيمان كرو دولتنا يسحق معها دولة دوائنا تلابة أمد هذا ay ku gargaarayso oo cadaalad ugu sameynayso waxay u dhaarteen waa inay galaan. marka waxaan leenahay khayreey ninka la yiraahdo farmaajo adeergeedaha madaxa ku qabanina ninka loo tago oo xalaal xisaabtamo oo haduu dalka cadaalad iyo ummadda u hayo ummadda ogashahayna dee waa ummadda waxa loo sheego hal yiraahdo ninka waa cadaalad daaya hadii kale ha loo tago oo runta loo sheego wixii amniga lagu sigay hadda waxa ismadii baan nahay waxaa la rabaa inuu cod naga soo baxo waana naga soo baxaya waa ka hadda u taagannahay qodobkaas isaga waxaan leenahay haddaan rahay ismadii haddaan nahay arrintaasu cod dheerna waan ku sheegaynaa dowladda federaalkana waa u sheegaynaa beesha caalamkana waa u sheegaynaa dhammaan inta ay khusaysana waan u sheegaynaa waxaas wax reer Jubbaland qabta maaha waxaasi wax reer Jubbaland qabtana maaha wax diinteen ay qabtana ma ahan wax cadaalad ina ma ahan haddii ilaahay raado arrintaas ma ogolin mana ogolaan doono arrintaas waxaanan ogolayn oo kaleeto oo aad og tihiin magaalada Kismaayo maanta waxaad og tihiin inay aragtaas si shir loogu qabto maanta inay aragta odayaashu waxaanay marnaba aqbalayn 3 iyo 7 tira la sheego waxay doontaba han noqotee ma aqbalayaan 3 ii kan rabo waan kala baxay. waxaan cod dheer ugu sheegaynaa beesha caalamka iyo dowladda federaalkaba inaan la aqbalayn 3 ii midkaan doono anigu aan kala baxo. waxaan mar labaad dowladda federaalka iyo beesha caalamka ugu baaqaynaa inaan amniga Jubbaland lagu hadlayn karin Axmed Maxamed Islaam aan lagu hadlayn karin amniga doorashada laguma hadlayn karo. salaadiintu waxay cambaaraynayaan shirka qabaa'ilka ee uu abaabulay madaxweynaha Jubbaland isagoo iska heb korkeenaya meelaha walaalaha ee wadadaga Jubbaland isaga oo ku hogaamiya beeleed halkii uu ka midayn lahaa beelihii deganaa Jubbaland isaga oo qorbajoog arrintaasna aan la aqbalay
dowlad goboleedka jubbaland kaas oo ay dhammaan dadka dega jubbaland ka soo wada qayb qaateen iyagoo aanu kala harin cidina maanta ma oran karto anigaa dhisay laakiin dadka oo dhan ayaa soo dhisay baasha qodobka kale waxa weeye caburinta jirta ee lagu hayo odayaasha ee lagu hayo saxaafadda ee lagu hayo musharaxiinta oo aad u soo ogtihiin in musharaxiintii ay tegi layihiin qaybi muqdisho ku sugan tahay qaybina ay nairobi ku sugan tahay cid booda gelisana la la'yahay 5 nin baa tegay 5 ninna kii ugu dambeeyey cilmogu ah sida loola dhaqmayna waad la socotaa hoteelada kuma kaambayn garan kartaan niman aniga ahayn oo axmed madow lama soo dhaweyn karo iyaga lama soo dhaweyn karo waad la socotaan shalay dadkii oo dhan guryaha laga soo wada bannaankaa la soo wada musharaxiintii waa la diiday in la soo dhaweey wuxuu awal ku lahaa arrintan amni baanu yeelaya oo amnigu marka isaga la soo dhaweynayana waa mid wax ka jiraan oo waxba ka halaabay miyaa kuwan marka la soo dhaweynayo waa mid baaba'aya miyaa maya arrintaasi waa aniga keliya hadlayso taa lama aqbalayo meesha caalamka iyo dowladda federaalka waxaanu ka codsanaynaa arrintan in wax laga qabto ninkan 9 sano dalkan iyo dadka soo waaray intaa ka badan lama daawan karo aad iyo aad waa tahay aad baad mahadsan tahay qaybihii dambe ee barnaamijkayna sida soo gaarnay waxaana kaga hadlaynay maanta isdhexgalka dhalinta soomaaliyeed maxaa bal dhallinyarada kaa daawanaysa barnaamijkan muuqaalka dhallinyarada oo aad leedahay maxaa ku soo gabagabeynaysaa barnaamijka dhallinyarada soomaaliyeed i daawanaya ku i daawanaya waxaan leedahay maanta asalka dalka anagoo qiimahaas waa inaan maanta soo aroorina dalkan waxuu hadilayaa ma dhicaysa dad qofka daawanayo siyaasada waa inay dad caafimaadkeena liito maanta dalkan ka dhaca marka dadka aan dhalinyaro aan ka soo hoos kacno yaani hore aan soo daashay casir waxaan noo filay casir maanta waxaa inoo filay in qabiil dirsi adigoo dembigiisa dhalinyaro hadda maanta yani maanta magacaas adigana magaca karnaa marka waa inaan wada shaqayn tayeynaa dadka jilcan oo dhalinyarada iyo hooyooyinka jilcan soo garab qabanaa dadka aan biri ka maalin markaa hoggaan aaday aan noqoto shaqsiga daawana dhibi lahay waa qofka maanta jooga ee xabaqta iyo qoriga wata sidaad uga dhigayaad ka fikirso biri asna kuu noqdo qofka la shaqeeya dalka dib markaa u fiirisay dadka hadda maanta dalka dhibay qoryaha wato jabhadda iyo dadka hadda xukunka hayo hal waqti hal zaman ay soo maray laakiin dadka zamankaas kama wada fikirin kuwaan biri way dhibaan maanta waxbarasho aan ku wacyigeliyo meeshay taagiin aan ka wacyigeliyo aan u soo jiido dhanka wanaagga u soo jiido way dhici waysay hadda maanta waa aragtaan halka maanta aan hayso laakiin qofkii daawana dhalinyarada waxaan u tinaya inaan ninka dhalinyarada ee ka saaqeeyo waxbarashada kan maanta nacab dalkiisa ka tahriibay inaan wacyigelino wacyigelinta ayaa muhiim waxa wanaagsan raqiis ma aha waxa wanaagsan qiimay leeyihiin soomaali haddaan nahay 25 sano waxaan ka shaqaynaynay wax dib noo dhigay yaan ka shaqaynaynay waa inaan ka shaqayno maanta wixii ka bilowda iyo berri wixii ka bilowda inaan ka shaqayno qarannimo wax la yiraahdo soomaali qaran ha ka hoos marina haddaa qaran ka hoos marto ummad kale ku talinaysa
waxaad maqlaysaa maalin walba dalkeena waa la qaatay waana loo taliyaa ninkaas saas leh qabiilku jecel yahay nin kale waa loo taliyaa markaa qalbigiisa dhex geshid waa nin qabiil jecel oo maxaa lagu talin waaya qabiil aan tahay qarnimo haddaad aaddo lagu talin maayo maxaa yeelay soomaali hadday mid noqoto cid u imaan karta ma jirto waxaa la rabaa marka oo kale oo tiimkaas waa inay ka shaqeeyaan wax la yidhaahdo dib u heshiisiinta waa muhiim oo mar walba laga tago dib u heshiisiinta ma bilaaban dhibka soomaaliya 91 dhibka soomaaliya runtii markaa idiin sheego wuxuu bilowday 60kii oo la raba in laga bilaabo dib u heshiisiinta dad soomaaliyeed oo walaalaheena yaan intii dowladnimo jirta soomaaliyeed aan takooraynin dib u heshiisiinta halkaasaa la rabaa in laga bilaabo dadkii la dhibi jiray oo walaalaheena ahaa inaan raaligelinno magdhowdan siino ma aha 91kii wixii dhacay ma aha 91kii wixii dhacay waxay ahaayeen dhibkii aan bilaawnay 60kii oo aan dad takoornay oo aan fursad u diidnay dhexdeenay ka bilaabatay marka wixii waa soo celin la'aanahay marka waa inaan dadkii aan dhibnay waa isnaqaanaaye dadkaas waa beeraley waa naqaanaa dadkaas soomaali ku dhex jiraan oo la dhibay waa naqaanaa in dadkaasi xuquuqdooda sida maraykanka ay yeelaan oo kale affirmative action xuquuqdooda la siiyo ilaahayna ka barino inayna cafiyaan aan weydiisanin inayna cafiyaan kadibna annagaas cafinna marka cadaaladda meeshaas laga raaca marka oo ay ka bilaabanto waalahayn somaliland waqooyiga dadka degan in lala fariisto waxa ay ku qanacsan yihiin si midnimadii loo sugo in la siiyo maxaa yeelay annaga midnimadaa noogu weyn wax walba in lagu qanciyo wax alla waxay rabaan in lagu qanciyo maxaa yeelay waxaan ka hadlayno ma aha 1 sano iyo 4 sano ma aha 30 sano ka hadlayno iyo wax ka dambeeya 100 sano iyo carruurtiinaan ka hadlaynaa marka dadkaas inaan soo dhaweyno walaalaheena oo negotiation dhab ah lala galo oo lagu qanciyo wax alla waxay raali ka yihiin si iyaga naftigoodu ay qayb uga noqdaan midnimada iyo horumarka Soomaaliyeed qoladan nabadiidka oo aan ku magacaabano al-shabaab iyaga naftigooda waa dhalinyaro wiilasheena oo la khayaamay oo been loo sheegay inaan soo celinno aan cafis u fidinno oo aan idhaahno nolol iyo mustaqbal yaa leedihiin hasku keen qarxinna hasku keen qarxinna idinkana naar ha gelinna annagana adduunka noo aqoonsanina inaan idhaahno aniga markii aan joogay 300 yaa markiiba noo timid oo aan mushahar u bilownay oo meeshii sarintii aan dejinay markaan ka soo tagay 3 bilood ka bacdina kuunay gaareen hadda meel ku dambeeyaan lama yaqaan shacabkii waxay aamineen dowladdii markii dee shacabkii dowladda is wataan shabaab iyo cid kaloo Soomaaliya rabta inay dhibto uma istaagi karaan ma hor istaagi karaan anaa idin sheegaya waxaa lagu hor istaagayaa markii annaga waan kala qaybsannahay qabiil u qaybsannahay markii dowladdii iyo shacabkii ay kala qaybsan yihiin markaasi dowladdaas nafteeda aysan xigmad iyo tale aysan haynin ay ku hanato quluubta shacabka markaasi haddii cid walba oo cadow kugu ah waa ku dhibaysaa marka dhallinyaradaasi inaan saas aan xalkooda aan halkaas ka raadin waxaa soo haray dowladdu waxay ku shaqaysaa dhaqaale markii shacabku aamino dowladdan inay tahay dowlad daacada dowlad run badan dowlad u shaqaynaysa ee ammaano ah shacabkii way la shaqaynayaan waa xaqiiqo waay dowladdu waxay ku shaqaysaa revenue dhaqaalaha shacabka laga aruuriyo iyo dowladdu ku shaqaysaa
lacag kama timaado cir kama timaado geed lagama guro annaga hadda halkan aan fadhino waxaan bixinaa mushaharkeena 50% 30% income tax aan u bixinaa 20 kalena waxaan ku bixinaa hadda soo meeshaan ma fadhino waxa free ah dalkan oo kaliya waa hawada hadda soo halkan ma fadhino dawladdan u shaqeynaa maxaa yeelay meeshaan lacagan ka bixinay nin walba soo baxay wuxuu kharash gareeyay maxaan ku yiraahdaa wuxuu kharash gareeyay shidaal waa qaadanaysa shidaal kala ku shubanaysa dawladda lacag siinaysa haddana tax laga jira cuntaan cunna hadda halkan cuntadii ninka odayga ah wuxuu lagu jaaj gareeyay canshuur isna canshuurtii dawladdu siinaya farta qaado dawladda lacag siinaysa laakiin maxaa hesheen waxaa hesheen amni waxaa hesheen iskoola free ah waxaa hesheen caafimaad waxaa hesheen jidad iyo buundo aan jabaynin waxaa hesheen nolol fiican hesheen in shacabka Soomaaliyeed laga dhaadhiciyo marka dawlad ma shaqayn karto haddaadan taageerin hawada kaliya free inta kale waa inaad bixisid lacag lacagta aad dhiibtidna oo canshuurta ahna aday kugu soo noqonaysa $1 oo laga xadaayo ama qof jeebkiisa gashanay ma jiro gacanta laga goonaa qofkii waa iska kabtamaya ما هي آخرة ندرنا آخرة كدرنا مركا قفكي ومدة وحي لقصوا أرويقاتها وأنين شرفتا كدا عدي وأنين إيمان حن ومدة تودح نولا عنها وإن ملحو لقيو مركا مركا يددك أركان مركا لعاكتي يخصو نقنيسو oo caafimaadkii iyo isbitaallo fiican ay bilowdaan oo ciyaalkii ilmihii iskoolay aadaan oo markay yar yihiin vaccinationkoodii la siiyo oo gabadhii nafaqa la siiyo oo kii curyaanka ahaa la siiyo taakuleen la siiyo soo ma garan agoonta meel lagu xareeyo oo carruurta meel haddaadsan laga aruuriyo lacagtii dib bay kugu soo noqotay hadda annaga lacagtaan bixin dib bay noogu soo noqotaa marka taas waxay imaanaysaa dadku markii ay ku kalsoon yihiin dawladooda taasna waxay ka imaataa hoggaan Soomaaliya waxay in sheegayaan fadhiga ka kaca maalin walba waxaan ka hadlaynaa wax wanaagsanna waxay ku xiran tahay in loo istaago oo loo shaqeeyo wax free ku yimaada ma jiraan taasaa waxay keentay marka annaga inaan doono qaaraan qaran dhalinyaradaas fakeray annagoo ku dul fakeray saddex arrimood yaa siyaasadda Soomaaliya lagu galaa aan idin macneeyo saddexdaas arrimood in la jabiyo way haddii aan rabno inaan dal yeelano haddaan rabno inaan ka fakaro Donald Trump oo hadduu guulaysto dawladtii waa lagu tirnaa guryaha lagu guuri baara inaan yeelano dal waa ku khasbannahay oo maalin walbaba dee muslim iyo islamophobia iyo hawlahaas inaan ka wada saddexdaas arrimood waxa way oo dhaqan xumo ah oo aan ismaxeen wax dal uu ku hormari karo dhaqanka Soomaaliya uu ah qofka raba inuu mashruuc oo tartamayo wuxuu mashruuc raba inuu ku noqdo lacagtii ummadda Soomaaliyeed وحقيقة لعكت المشاهدات اللي قالوا الله هاي المصيرة توقلوا حلول جلايا لكن حرام تشتغل أقوى ولا جفاء عليه لعكت الوجرة كان بينا وقوين وصديق حديثة وعلى عكس المدح إلى حياة والله أكبر قالك كمان أفسحيتها وهو قالك إنه هو نفقيه لأن مع الشركة وصديق كل من هاي إنه هو نفقيه لعكت هذا الوجرة كان بين وأعتقد جرا اللبان وسوالف كده واحد قارن قبيل انت قبيل كسدي بقول نقضا يقول هذا طل هذا معي شيء من اسمه لا يقصر عليه يعرض كان استرا سوق دي سمر نك اي سينا يا العقد كان استرا من اي هوا الى قطان ما لكن بس سوق علينا لكن احنا سمر يقول دغا لو تقول من الموقف يدور ساعة نكاد بالعصطرة مرة كل شخصية سياسية والعقد سيرة فقالوا بلوغي بزنس كسكع علي نكاد سياسية وبلاي ريه من يسمعش ما يقف سنة ريه بالله قاران قبيل هذا يصير
naxayaan marka waxay siinayaan dumar caashaqoodii baryahan la sudacare dib u jeedis mooye warkuba wuu uga daraya inaad doob ahaataa ka roon daadis gabare waa inaad ka durugtaa yarta damacu raaca waa inaad difaac adag gashaa deeqow abidkaa sida buurta daalaacirkaa laga daymoodaa hadday kugu dulmeertod waxun yara darantaana waa inaad daruuraha gashaa dayax sidiisii damiinkii isheelaha hawee loogu dawgalay boqon bay yidhaahdaan ninkii darajo siiya daandaansi waa kaa badsan kumana daayaan adoon diiday oran baa dubnaha laga shakaashaa iyagoba rag waa doonayaan dunida maanta ayoo lagamana dareemo wataa diiday waanada ay qalbigay dagaal kula jiraan sida daraawiisha adigana dabaabaad ayaa lagu difaacdaa somaa garan daqar bay dhexleen wiilashii daacadda ahaa calafkuna ma diidina dhaqsi dalaq yidhaahdeen isdabaali laga waa raggii daad ku haabsaday cilmi baa xabaal loogu daray doonis gabareed wuxuu gabayo daabacay ama curiyey deeleyba diiwaanka waxa uu ka galay cabasho doorkeed ama diida oo ina ragow quba daliilkayga ama nimay haween dayriso dooxan igu sheega hal door dumar yaqaanaan cabdow doodan dhaxashiine saxaariga dayaca waanada iyo gabayadan duubi kolka uu sundaacu hadhow dib u shalaaya waryaay darsi weeye hooyooyinkood kuma dardaarmeen waxay diidi waxay dooniyo waxay gelintu baaqeedo durbo kuma hadaaqday afkay dabar ku haysaa ilaa ay dilaacaan sirtay daa'in qariyaan carraweela diintay bartay dumar ku haystaan sidii nebi la soo diray ayaa laga daweeyaa dawadaag inuu yahay cishqigu saa dambe garana degdeg kuma habboone shirtaa lagu dadaalaa dadkan yaan la waalin qof aan dooq ku ahayn ha siinin dareen jacayl dibnaha hadal ha uga odhan dalqada sii dhaafsanayn ha odhan qalbigaa degto adaan dadka kuu jeclaa jacaylku danaysiiyo ma aha daar la isla galo